بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي ونكسن مركله waxaan arkaa CBB oo William Ruto sida farmaajo camal ugu dabaldegay Ruto yimid waayahay saddex isha ka horna Raila Odinga madaxtooyada tamul jadiid ninkaas xaqay haddana Ruto xaqay waayahay CBB dabaldegidooda wax ka dhihi doonaa sidoo kale doorashada Kenya maxay uga dhigan tahay xiriirka dalka dariska ee Soomaaliya misla jaan qaadi karaan Xasan Sheekh Maxamuud iyo William Ruto waa su'aasha barnaamijkeena dul hagoogan galabta sidoo kale General Sadiq John oo ahaa ninkii ugu sareeyay badbaado qaran ayaa maanta dib u hantay darajadiisii ciidanimo iyo xuquuqdiisa kadib wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Soomaaliya waayay mar kale iyo barnaamijkeena bandhiga soo dhawaada aan ku hormarna Kenya Sadiq John oo waliba qudhooda CBB ay aad uga caroodeen darajadiisa in loo soo celiyo waa qaybta labaad ee barnaamijkeena qaybta koowaad Kenya sida la wada socotaan doorasho in muddo ah la sugayay ayaa maanta lagu dhawaaqay oo aad iyo aad la isugu dhawaa konton oo hal dheeri ah madaxweynaha cusub ee Kenya sida guddiga doorashadu ay maanta ka dhawaajiyeen William Ruto ayaa noqday saameyn ayay ku dhex yeelatay bulshada Soomaaliyeed guusha William Ruto marka laga soo tago saameynta dalkiisa oo labada madaxweyne taageerayaasha hadda madaxweynaha Soomaaliya kii ka horeeyay ayaa isku si aan u arkin laakiin waxaan rabaa Soomaaliya maxaa faa'iido u ah taasaan rabaa barnaamijkayga markii aan wareystay oo dhigay dadka khibrada ah ee siyaasadda gobolka ku wacan ayaan rabaa su'aashaas barnaamijka inaan uga jawaabo waayo laakiin aan la kaftama CBB idinku doorasho Soomaaliya ka dhacday ayaad ku jabteen waxaad moodaa dhowr kiintaal ama dhowr gantaal oo hambalyo ah ayaa xoogaa idinku baaqatay meelaad ciidaad kala dul dhacdaan iyo meelaad geysana waa la adihiin Mareykanka xildhibaano ka soo baxa waa kala dul dhacdeen hambalyada haddana William Ruto ayaa hambalyo u direysaan daraadna oo qoyan ama muuqatana Raila Odinga waxaad dhihayseen damul jadiid iyo Xasan Sheekh ninkii xaqi lahaa waa kan markuu guul dareystana waxaa ku qabsateen xanjadiina Ruto waa iska caadadiina hadba Xasan Sheekh ku xumeeskiisa waaye labada taageero maahane dadkan waa dadkiina dhihi jiray ilaan aqligeena annaga 13 jir maaha dadkiina dhihi jiray waa Kenya cadowgeena waay who cares marka madaxweynaha ee Kenya yeelata hadii cadowgeena tahay maalin waa cadow maalin waa hambalyo aniga waa kala garan lahay waxaan sarrabaa cadow Kenyaati maaha ee cadowga Xasan Sheekh aad u aragtaan ana runtii sheegay waayahay Soomaaliya maxay uga dhigan tahay doorashada maanta taariikhiga ah ee ka dhacday Kenya waa su'aasha malaayiin Soomaaliyeed qalbiyadooda ka guuxaysa waaya haddaan sidii nin weyn wax idinku sheego intii nin siyaasadda dhuuxaysa horta marka hore qaacidaan rabaa inaan idin baro Kenya is Kenya Soomaaliya whatever ama farmaajo madaxweynaha ka noqdo ama Sheekh Shariif ka noqdo ama Xasan Sheekh ka ahaado Soomaaliya hal dan ay leedahay soo bentay Kenyana hal dan bay leedahay danta Kenya ayaa ka horeysa mar walba danta Soomaaliya ayaga dhankooda sidaas darteed Uhuru dantiisa kuma culaadinayna farmaajo kulamana saaxiibin Xasan Sheekh ee danta Kenya ayuu mar walba hormarinay sidaas ayadoo laga duulay siyaasadda William Ruto siyaasadda ku kala duwanaadaan axsaabta mucaaradka ee haddaba doorashadan ama khilaaf noqon doonto ama sidii hadda guddigu ka dhawaajiyeen ee ku sii socod doontaba waxay noqotaba maxkamadda ilaamisay William Ruto danaha Kenya ayaa mar walba muhiim u ah farmaajo iyo Xasan Sheekh isaga ma eego maadaama marka Xasan Sheekh iyo ninka la yiraahdo Uhuru ay heshiis wada dhigteen dabayaaqada bishii hore Ruto muxuu ka bedeli karaa maya Ruto ha imaado ama Raila ha yimaado waxa ka bedeli karo waxa heshiiye waa laba wadan nad Xasan Sheekh iyo Uhuru oo isdagaalsanayeen gabdho iska qabeen isma dagaalin laba wadan heshiiso laba madaxweyne oo matalaadka kala haysta waa in siyaasadda fahamtaan waxa hirgelinaya heshiiska hadii labada madaxweyne oo matalaad ah ay heshiisku u dhabow cidda hirgelinaysa heshiiska ama dhaqan gelinaysa systemka waaye nad labada madaxweyne ta subax soo kacaan Soomaaliya waxa ku liishin daadka ma la diray malayga Soomaaliya ma la diray ma aha system shaqeynaya systemka hadii labada dawladood ay u arkaan midba midka kala danteeda Kenya heshiiska Xasan Sheekh iyo Uhuru ay wada gaareen ama ay wada saxeen miiska korkiisa
haddii Kenya dani ugu jirto Ruto waa sii dhaqaajinaya William Ruto haddii Kenya aysan dan ugu jirinna waa joojinaya laakiin Kenya dana ugu jirto Kenya Soomaaliya la'aanteed ma noolaan karaan Kenya waa in jaadka mirooga ay Soomaaliya u daabulaan si dhaqaaloodu kor ugu soo kaco ma kula taa marka William Ruto madaxweyne ku-xigeenka ahna hadda madaxweynaha cusub inuu danaha Kenya hoos u dhigayo ma kula taa ma ilaa taas anagoo ka duuleyna William Ruto wax badan kama duwana Uhuru Kenyatta xitaa haddii Raila uu imaan lahaa hataa xisaabta mucaaradka heshiiskaas waxba kama u malayn maa inay weyse badan ka burayso haddii xataa madaxweyne kale imaan lahaa marka sidaas darteed iska iloowa madaxweynaha cusub iyo labadan iyo madaxweynaheena Soomaaliya qeyr Allah siiye maxaa iska bedeli kara wax iska bedeli kara ma jiraan labada dawladood dantooda ka shaqeynaya Xasan Sheekhna saas waay haddii Xasan meesha ka baxa madaxweyne kale imaado heshiiska Xasan waa jiraya systemka adeegaya madaxweyne kale hadduu yimaado qeyr Allah siiye heshiiskaas wuu sii soconaya intaas waa su'aalaha ka dhex guuxaya ummadda Soomaaliyeed ayaan rabaa inaan uga jawaabo waxaan rabaa qodobka labaadna ninkii badbaado qaran ugu saameynta badnaa Saadiq John ayaa mar kale maanta dib u hantay darajadiisii ciidannimo iyo xuquuqdiisii ciidannimo intaba kadib markii madaxweyne Farmaajo uu xuquuqdaasi ka hakiyay markii isaguna uu si cad oo bareer ah uga hor yimid muddo kororsi 2 sano ah oo aan sharciga waafaqsanayn ama baalmarsan Saadiq John xasuus gaar ah ayuu ku leeyahay bulshada Soomaaliyeed iyo inta ka dhiidhisay dictatorka madaxweyne Xasan Sheekhna waxaan leeyahay inaad ilowsaneen halgamayaashii dalkan soo maray waxay marqaati cad ka tahay arintan in ciidankii badbaado qaran kuwoodii isbiimeeyay ee dalkan badbaadiyay aad il gaar ah ku hayso ay badbaado waxaana kaloo rajeynayaa madaxweynaha baaq ayaan rabaa caawa in halkan uga diro idinkuna aad sheer gareysaan oo aan madaxweynaha loo geeyo codsigan madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud qeyr Allah siiyo taliyaasha ciidamada oo Saadiq John ku jiro oo Koronto ku jiro oo Tuureer ku jiro oo Jaafar ku jiro oo Geelax ku jiro oo Shah Macab ku jiro kulli hadda xaadoole waa xildhibaane maadaama iyagoo mishaarkooda iyo darajadooda iyo amarkooda uu hayay Farmaajo ay naftooda biimeeyeen shacabkan inay waxa ay rabaan ay ka dhabeeyaan oo dictator waxa uu rabana ay istaajiyaan waxay u mareen dariiq dheer oo ay adag tahay in la maro xitaa aniga qudheeda taas iyadoo laga duulayo waxaan jeclaan lahaa maadaama bulshadu ay hormuud u noqdeen maanta bulshada hortooda in lagu abaalmariyo oo darajooyin culus xitaa loo dhiibo si mustaqbalka haddii madaxweyne fallaagaha uu yimaado ay wiilasha gobolka Banaadir ka soo jeeda ay mar kale ku dhiiradaan in xukunka noocaas ay iska fogeeyaan si abaalmarin kale ay uga helaan shakhsiga Xasan Sheekh oo kale ah oo markaas ka dambeeya waa codsi aan jeclaan lahaa Saadiq Johnna CBB ilmada ka socota waa ooynayaan waxaas leeyahay saaxiib aad iyo aad u maasan tahay waa istaahishaa kulli tareenka meel fog baad ka joogtaa shirkaad ka saarantaa oo kula socdaa xilka ku soo socdana hambaliyo hordhacan ku siinaya darajadaada lagu soo celiyaa xil magacaabis ka horeysa sida ahdiga siyaasadda uu yahay oo ku hambaleynayaa mudane Saadiq John hambaliyo soo wada qora bye bye